إذا عصير السكن الله بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا السلام يا مشوينتا غير كلمية ملك استويكية مادين بادية بغداد السلام يا mahadnaq weyn waxa leh laanta Finland kulan karin oo diyaar gareysay ragga dumarba waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin oo hogaaminaya gudoomiyahoodu Axmed Khaliil salaanta intaan ku koobno waqti ma haysano waxaan jecelahay dhowr waxyaabood oo ku saabsan xisbiga kulmiye inaynu maaragtay ku soo koobno xisbiga kulmiye waxa ogtihiin xisbiyadii markii ugu horeysay aynu aasaasmay xisbiga ugu dambeeyay buu ahaa waxaan u noqday xisbigii dawlad dhan oo jirtay muddo dheer bedelay isagoo mucaarida ka guuleystay oo ka dhicin ilaa imaka geeska Afrika kamay dhicin xisbi kaliya inta ay jirtay taariikhda oo mucaarida oo ku guuleysta inuu dawlad bedelo kulmiya ugu horeeyay waa guul aad iyo aad aynu dhammaanteen ugu faanayno kaalinta ay ku lahaayeen dadka qurba joogina waynu ognahay kaalin aad iyo aad u muhiima ayay ahayd horseed gudahana ay ka ahaayeen dhalinyarada iyo dumarka marka aad eegto taariikhda kooban ee xisbigeenu uu galay waxay noogu xigta inuu mar labaad haddana noqday madaxweynihii aynu dooranay inuu isagoo xaq u leh inuu mar labaad sharaxo inuu ka tanaasilay taana uu taariikhda ku galay mar labaad uu kulmiye noqday Afrika xisbigii ninkii labaad ee teeramkiisa ka tanaasula ee Mandela geeska Afrikana ay ogtihiin in distooradii loo bedelayo oo markii muddadii ka dhamaatay labadoodii teeram Afrika galbeed iyo bariba ay mar saddexaad iyo mar afraad ay distoorkii wada bedeleen inagu sitii waxa qowlahaad uu ka tanaasilay taana waxa la guul xisbiga kulmiye ah uma laha keligii madaxweynuhu laakiin madaxweynuhu way noo horseeday sidii guushaba way noogu horseeday faankeeda iyo magaceeda waxa la kulmiyaa leh halka markaynu eegno xisbigu haddana wax u galay tartan fara badan oo gudihiisa tartanka uu xisbigu galay ee gudihiisa waxay ahayd tuina tusaysa dimuqraadiyaddu waxay tahay iyo tuu inoo jeexay madaxweynuhu in dadku ay ku tartamaan tartanka aynu galnay madaxweynuhu wuxuu haddana eegayay anigu kullayba markii 2014 ay ahayd garabka qolada Muuse taageersan haddaanu ahayn waaba nuquusanay laakiin madaxweynuhu waxaad moodaysaa inuu imtixaan naga qaadayay imtixaanka wuxuu ka qaadayay waa meel adag bal samirka iyo dadaalka iyo dulqaadka nimanka kaga tagayso bal tijaabi dad badan baa waxay lahaayeen askarta walaal hadii laga cadheeyo way iska yaaci doona waa loo dhabar adeegay samir baa la galay imtixaankii uu naga qaaday kii masterka lagu heliyay buu ahaa xulkii kale naga soo horjeeyay imtixaan yar oo elementary uu dhigay way ka yaaceen baxradii marka madaxweynuhu waa aragnimadiisii una imtixaanii uu ku guuleystay ciduu hawsha uga tagaya cid ay tahay u dhabar adeegaysa ee u samraysa ka halkaasaan kaga baxaya waxaan idin sheegayaa xisbiyadu taariikhaha ay soo mareen wadankeena xisbi barigii NUFTS baan idinku celinayaa inta maanta idin sheegay in ka duwan baan idinka sheegayaa maanta waxaan idin sheegay inay jaraa'id lahaayeen iyo inay subscription lahaayeen oo xisbiyo sida reer galbeedka ay u dhaqmi jireen sida xisbiba maanta waxaan idinku dariyaa program baa la yidhi ingiriisku dalkan caadi u leeyahay oo xisbi walba program u la yimaada radio Hargeysa la yidhi programkeena saddexdii xisbigii ugu horeeyay oo NUF taha program buu soo qortay waxaasaanu qaban doonaa waa laba cisho lagu celinay maalintii dambe la yidhi sanashiyay maxaa haysan nimanka sanashuna waxay ahayd Maxamed Ibrahim Cigaal Allah yarxamu nin aad iyo aad u yaqaan bulshada Soomaaliyeed buu ahaa wuxuu baashan looma baahna maxaa kaga baxdaa wuxuu yidhi walaalayaal anagu sida qoladii NUF tahayd cadowgeena sirta u sheegi mayno waxaanu leeyahay laabtan ku hayno ya
laabtaanu ku haynaayo haddaan maanta idiin sheegno sida qolada xabashida iyo waxaasoo markaa la colaadinayay ayaa ka faa'iidaysa haddaanu idhaahdo ciidankaanu xoojin haddaanu idhaahdo dhaqaalahaanu kicin laakiin laabtaanu idinku haynaaye qoladaasi sirtii bay bixiyeen waxbay program idiin sheegi mayna laakiin naamina wu dadkii waxay doorteen ninkaan bila programka markaa wadda qocolkeenan kulmiye had iyo jeer jecel modern politicska waxaynu u baahannahay inaynu eegno mujtamaceena fahamkiisa oo aynu mujtamaceena korna u soo qaadno laakiin xadhigga aynu mujtamaceena ku jeedinayna inaan aada u gejin oo aan u goyn oo waxaynu hamada aynu leenahay programmada horumarkaynu samaynay waa inaynu dadka u sheegnaa waa dhab laakiin haddana af ay fahmayaan oo jilicsan waa in dadka ugu sheegnaa waxa weeye afka jilicsan aan ugu dhaqaalahan idinka sheegayaa waxaan idhi 20 sannadood lambarka baabuurku muxuu maraayay maalintu kulmiyo qabsaday waxay 730,300 buu ahaa gaadhigii ugu dambeeyay maantana 80 buu maraya waxa weeye 20 sannadood wuxuu dhaafi waayey 730 sideetan markuu gaadhay labalaa buu ka batay 6 sannadood taas waa waxaan idhaa markaa dadku waxay fahmayaan baa loo sheega waa horumar waxaad eegtaa guryaha dhisan dariiqaa dheer ee 26 juun la yidhaahdo midna kama dhisnayn dabaqyadaas iyo moolalkaa iyo hudheeladan jira iyo magaranaysa guuleedka iyo karaamka iyo wax soo meelaha faraha badan ee wadani ku shiraayo iyo ku shiraayo iyo waa 6 sannadood wax dhismay marka afkay dadku horta fahmayaan waxa weeye qaar baa markaas markiiba la soo badan oo dad baa dhistay bay yidhaahdaan oo haddaa yurubta yaa dhistay ma dawladaha dhisa dadu baa dhistay dawladu waxay u sameeyaan systemkii ay ku dhisan lahaayeen iyo dhiirigelintii dadku markii horeba way joogeen laakiin waxay aamineen dawladdan iminka jirtaa nidaamkay ku shaqaynayso inay maalgashi dadka sameeyo halkan waxaan haddaba yar uga odhanayaa markaa horumarka intaa la gaadhay qurbajoogu intee buu ku leeyahay maalin dhaweyto rag mutacalimiina hadlaayo waxay yidhahdeen qurbajoogu shaqadii bay dadka taariikhda iyaga ugu wacan waxa weeye aada uma eegin dhaqaalaha u malaynaya dhaqaalaha waddanka la geliyey wuxuu ku socdaa waa qurbajooga lacagta miisaaniyadda dawladda lacagta ay qurbajoogu xawilaan 4 jeer bay ka badan tahay guryaha la dhistay iyo dhulka waxaa qaaligareeyey iyo wixii shaqaalaha sameeyey iyo mashaariicda kuwan iminka idiin sheegaya hotel karaan iyo hotel guuleed iyo dool waa qurbajoog baa dhisay ambassador hotel waxaan waxa weeye markaa shaqo abuurka ugu faraha badan dadka sameeya waa qurbajoog in la yidhaahdo iyagii baa shaqo abuurka ka soo horjeeda adduunkana waxaa investmentka la yidhaahdo waa la soo jiitaa dadka dibaddaa la soo jiitaa waxaa kale yidhaahdeen shaqada waxaan u malaynaya haddii la yidhahdo lii soo qor dawladda axmed maxamed maxamuud intuu shaqo geliyey haddaad si walba u eegto 100 qof maaha ma 100 qof baa wax ka tari karta shaqa la-aanta somaliland qurbajooga la shaqo geliyay 100 qof maaha waxa waanayay dadkii maalgashaday ee shaqaday abuureen oo aynu ognahay in gef laga dhigo la yidhaha shaqa abuurkaba waxaynugu wacan shaqa la-aanta qurbajooga waa nin meel dhow ka eegay weeye qurbajoogu iyagaa shaqada abuuray iyagaa maalgashiga la yimi iyagaa horumarka sameeyey mujtamaca somaliland muwaadiniintana in loo kala saaro qurbajoog iyo nin gudaha jooga iyo waa qabyaalad kaloo cusub intii hore muqaadi ka joognaa dadka muwaadiniintu waa siman yihiin xaqa waddankan aan joogeen dhowrka sannadood joogay xaqa muwaadin markuu isiiyo ima yidhaahdo soomaali baad ka soo jeedaa mar haddaan sharcigii qaatay waanu simanay marka waddankii dhammaan ku abtirsanayay halkan habeen iyo maalinba ugu dadaalayay in laygu tilmaamo ajnabi iyo qurbajoog waxa weeye meelka dhac bay ku tahay dadka marka waxaan leeyahay war dadka yaan lagu kala qaybin waxaa eris xaqa ninka ku hadlaya wuxuu odhan lahaa war dadka ha loo dhiibo nin waliba meeshuu ka haboon yahay taa waxba kama qabno ama qurbajoog ha ahaado ama nin gudaha ha jooge dadka nin waliba meeshuu ku haboon yahay iyo aqoontiisa iyo kartidiisa wax lagu dhiibo kelmadaasaa xaqa ah oo muwaadiniinta xaq u siman ah laakiin iyaanaan isku kala qaadin reerana iskuma kala qaadin riijina iskuma kala qaadayno guda iyo dabadna isku kala qaadi mayno nin waliba meeshuu ku habooyo dadka wax ka taraayo fursadda ha la siiyo dadkana ayaa la soo dhaweeyo xisbigaa kulmiye berigii waanu galay 3 qodob baan 3 waxbaan ka qori jiray anugu markii ugu horreysay doorashadii madaxweynaha hore ee 8 ku cod laynagaga helay
waxaa ahayd maqaaladan qori jiray headline-keedu wuxuu ahaa codkaagu yaanu cadow kugu noqon waxaan dadka uga digayay war cidda dooranaysaa iska hubsada nasiib daranu kulli cidda aan la jeclaa way dhacdo daahiryaala soo baxay waa ku hambaliyeeyey tii ku xigtay waxay noqotay dadkii oo calaacalaya markaan arkay codkaaga ku ceelbax oo macnaheedu tahay war haddaa shalay qaldantay bal maanta un sax oo ku ceelbax maanta waxaan leeyahay haddaba codkaaga ku caymi horumarka somaliland in lagu caymiyo horumarka aynu gaadhnay oo inaan dib u dhicin codkiina kulmiya sidaan leeyahay oo ku badbaadiya waxa kale oo fara badan oo idiin sheegi maayo gurbajoog haddaad tihiin kaalin weyn baa kaga jirteen tii baana laydinka doonayaa dhaqaala laydinka doonayaa afkaar baa laydinka rabaa inaad qiimaysaan horumarkii aynu gaadhnay iyo waxa cusub ay kusoo kordhinaysaan labadaa inaad dhinac wadaan ina aaraa la timaadaan ayaa xigta dhaqaalaha intaana inaydaan kaga bakaylin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu